golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay xeer hoosaadkaana waxaa horey u saxiixay guddoonka golaha shacabka oo uu ugu horeeyo guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ah guddoomiyaha mooshinkiisa yaalla taasaan noo dhaxaysa taasaan ku wada shaqaynaa taasaana kala xadeynaysa sida saxaafaddu u jeedo waa xeer hoosaadkii golaha shacabka oo ay guddoonkeennu noo saxiixeen markii golaha shacabku ansixiyey intaa wixii ka dambeeya diyaar uma nihin in aan marin habaabino shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibad diyaar uma nihin in aan ku kalsoonaan weyno wixii aan qorannay diyaar uma nihin in aan ka shaqayno fowdo iyo marin habaabin mooshinka waa la dhigay procedure-ku galay guddoomiyihii sharciyadaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu guddoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horreyn isagu saxiixay waa nasiib darro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yiraahdo halkanaa looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhexdiisa ciddii markaas saxiixdee ka baxaysa dood ahaan bay uga bixi kartaa cod ahaanna way uga bixi kartaa laakiin loogama baxo bannaanka loogama baxo kadaba imaashanaya waxay tahay codkaagaad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaagana ku muuji 184 mooshinka hadduu gaari waayo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waa guddoomiyihii golaha shacabka hadduu gaaro 3 meelood labana 15 beri gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa guddoomiye kale waa wax cad kama filaynin wixii uu ku hadlay doraad oo ahaa miiskana la igaga noqday 6 bilood kadibna la igama sheegi karo kama filaynin wixii uu xalay yiri hal xabba ku soo darsada kama filaynin meel ka dhacay ku tahay aqoontiisa annagana waxaan xaq u leenahay ay gar noqonaysaa sida la wada ogsoon yahay madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu furay kalfadhigii baarlamaanka oo wada jira labada aqal guddiyadana waxay shaqeeyaan marka uu kalfadhigu xiran yahay waa nasiib darro kale guddiyadii loo doortay guddoonka inay dhahaan annagaa niri waxaan leenahay guddoonka guddiyada ku noqda xeer hoosaadka haddaydan baal ka soo rogin dib u aqriya haddaad il duufteen ku noqda waxaa soo saddexeeya qolo shalay halkaan fadhiisatay oo tiri su-aalaan guddoonka weydiinaynaa oo shir guddoon baan nahay ha marin habaabinina shacabka Soomaaliyeed ha marin habaabinina xeerka iyo shuruucdii dalka u taallay gaar ahaan xeer hoosaadka golaha shacabka oon ku wada dhaqanno tan afraad oon raba inaan ka hadlo anigu waxaan ahay xubin ka tirsan golaha shacabka waxaan ahay xubin ka tirsan golaha wasiirada inaan golaha wasiirada anoo xubin baarlamaan ah aado golaha shacabka xubnihiisa oo wada jira oo sharafta leh ayaa kalsoonidaa i siiyey waa la ii igmaday ayagaa igula xisaabtamaya ciddii su-aal ka qabta waajib gudashadayda hal xildhibaana igu filan inuu su-aal iga weydiiyo
hal guddi oo gaaraa igu filan inuu su-aal iga weydiiyo. waxaa nasiib darro ah guddoomiyaha mooshinka ka yaallo wuxuu qabtay 2 jeer laga keenay oo la wada og yahay madaxweynihii jamhuuriyadda ee hore mooshin baa laga keenay. maalintaa mooshinka laga keenay xildhibaano golaha ku jira iyo kuwo xubno ka tirsan golaha wasiirada mooshinkaa wax ka saxiixay hore u saxiixay. maalintaa ma uusan dhihin qarankaa dumaaya haddii xubnahaasi wax ka saxiixeen. wuxuu qabtay mooshin executive powerka ama hay-adda fulinta oo xukuumadda ah waa collective responsibility, waajib gudasho wada jiraan naga dhexaysa. xubno xukuumadda ka tirsan ayaa xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed oo aan ka mid ka ahaa mooshin ka qoray oo golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin wuu qabtay. maalintaa ma dhihin jawaari hay-adda fulinta ay ku burburinayaan, ma uusan dhihin. doraad mayd maxaa la yidhi kee ugu dambeeya dalka wuxuu leeyahay shuruuc hindise sharciyeed wuxuu ka yimaadaa curintiisa xukuumadda, baarlamaankana mararka qaarkood waa laga curiyaa sharci. fadhigeenna ugu dambeeyey waxaa la keenay sida la wada ogsoon yahay sharci baarlamaanka ka yimid oo ah DB Wall in dalka xeerkaasi ka mamnuucayo. anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii uu codeeyey. maalintaa guddoomiye jawaari muxuu ii dhihi waayey sharcigan baarlamaanku ka yimide xukuumadda ma keenin. codkayga maalintii la rabo inuu vaalida yahay, maalintii kalena vaalida ma aha miyaa? kama filaynin, kamana yeelayo in la dafiro xuquuqdayda. aniga xilgudashadayda waajibka sharciga ah oo aan leeyahay xeeroosaadka iyo waxa ka dambeeya waan dhiman karaa, waan noolaan karaa, waa ka tegi karaa. anaa xuquuq asaasiya u leh inaan iska casilo haddii aan kari waayo oo aan gudan waayo, aan u caddeeyo wixii aan aqbalay, xitaa hadduu yahay xubinnimada golaha shacabka, iska dhaafa xubinnimada golaha wasiirade. saas daraaddeed waxaan rabnaa inaan dadka la marin habaabin. guddoomiyaha jawaari wuxuu caan ku ahaa inuu dhaho beesha caalamka nama soo faragelinaysee qadiyadaheenna gudaheennaan ku saxanayna. ma maanta uu leeyahay beesha caalamkaa timaado? bulshada rayidka iyo cid walba iyo soomaali iyo caalamka asaa u sheegi jiray qadiyadaheenna kanaan ku ansixinaynaa. waxaan leeyahay oon ku soo gabagabaynayaa kama filaynin waxa uu sheegay, loogama fadhiyo, caqliga ha sheeqeeyo. yaysan noqonin qofka ugu ildheer baa dadka ugu aqoon daran. saas daraaddeed yaan laga abaaroobin maanka iyo garashada. saas daraaddeed yaan la marin habaabin. wax burburaayo ma laha, maalmo qoran waaye. guddoomiyaha waxaan ka rabnaa inuu miidiyaha ku noqdo oo mar labaad caddeeyo daciifnimay ku tahay uu ka noqday hadalkii. hal xabba ku soo dara kuma soo darayna taasaa aqbalaysaa haddii meel dhexe la tegaayo iyo haddaan hoolka aan tegaynana kaasaan aaminsannahay. 170kiina gudaha looga noqonayaa ee bannaanada loogama noqdo. wabilaahi tawfiiq. kula lihi raalli ahaa xildhibaan kama tiid halka واسي سعودة عبد الله الشيخ اسماعيل
intaa ka bacdi halkan waxaa isugu yimid xildhibaano ka mid ah xildhibaanadii saxiixay mooshinkii laga keenay guddoomiye sheekh cusmaan oo iyagana haddii alla ku rooyay taageersan mooshinkaas ayaa halkan isugu yimid oo kulligoodba wada danaynaya danta guud ee qaranka kale. annaga waxaan rabnaa shacbiga soomaaliyeed inaan u sheegno waxay haddii alla ku roon yahay ku badbaadinayaan baarlamaan kaalintiisii maaragtay muxuu ahaa la habaabin la marin habaabinayo intaas waa wax soo socday bay ahaayeen mudday soo jiitimayeen hadda ayaa daadkii uu soo biyo tufay marka insha allahu tacaala arrintan ka warwareeg ma leh guddoomiye jawaari nin sharaftiisa dhowranayaan kugu aqaynay nin wadannimo xoogaa maaragtay muxuaha ay ku jirto ayaan kugu aqaynay nin qarannimada ay ku weyntahay ayaan kugu aqaynay intaad jidgiid qarankan gelin lahayd ama ay ku roon tahayba inaad istiqaalad iska dhiibto taasay sharaftaada ku jirtaa annagana waqtiga inaan beeqaansanno oo danta waqtigii aan maaragtay muxuu ahaa aan mooshinkaan marintiisa nooga lumi lahaa aan hawshii kaloo na sugaysay aan gudagalno durbadiiba marka waxaan ku leeyahay waddada saxa waxa weeye inaad la tashitid damiirkaaga waddada saxa waxa weeye inaad dhowrtid maaragtay maxaa la yidhahdaa xeerka xeeroosaadka iyo dastuurka waddada saxa waxa weeye inaan si fiican ku sagootino adoo aan ku jecelnahay ma rabno annagoo ishaaraamayna marka warkayga sharafkaadana ilaasho guddoomiye warna wuxuu ku dhahay walaashay warkii khadiija warkii ay soo jeedisay annagana kulligayna waa wada taageersanahay haddana insha allahu tacaala mooshinkan waa mooshin sharci ahaan u jira ka warwareegis ma qabto arrintaas mana rabto isagana waa ogyahay annagana waa ognahay ilaahayna waa nala ogyahay marka mooshinkan baarlamaankuu tegayaa halkaasaa lagu kala baxayaa haddii isagu nasiibkiisu yahay inuu sii joogana waa joogaya haddii laga kaaftoomayana uu baxayana halkaasuu maaragtay si sharaf leh uu uga baxayaa albaabka laakiin waxaa ka sii sharaf badanba oon aniga halkan baa uga jeedinayaa inuu yidhaahdo walaalayaal masaasaa garateen haa odagiinii aad isku raacsaneedeen baan ahaye maanta masaana garateen haa anigu waan dhiibay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waddankana aan noolaado haddi inuu yidhaahdo ay ku qurux badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا شرفت له شركة الصوت الملي تمام صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وحي لديه لها هذا اللي بعد يجيه الرئي يعني تبغى الشيعي أنا وحنا هوا لأن قدروا شيء عن تاريخ ولا بوانتاي إيوه الجوابي وحيالها قلدن waxyaalaha qaladaadka keenaya oo maalmahan soo baxay inaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed aan u cadeeyno xaqaa'iqa ka jira maaragtay baarlamaanka dhexdiis
arrimaha dadka soo cusboonaaday waxay ku salaysan yihiin runtii waxaan rabaa sida hortayda loo sheegay arrimaha maalmahan soo baxayay oo guddoomiye jawaari iyo maaragtay xildhibaanad maaragtay hataa ku taageersanna waa lii sheegay oo guddoomiyaasha guddida qaar kamid ay ka mid yihiin ma aha jawaari iyo guddoomiye jawaari qof aan aqoon lahayn ama waayarag ahayna ma aha rabitaanka inuu xaqaa'iga kaa leexiyo oo rabitaankaaga maaragtay xaqaa'iga kaa leexiyo qaladku geliyana nasiib daro weeye marka sida uu qabo heer hoosaadka golaha shacbiga oo sidii haddaba xildhibaanada ay sheegaysay oo guddoomiye jawaari iyo ku-xigeenida ay saxiixeen qodobkiisa 75aad farqadiida 3aad yaa caddaynaysa qaabka guddoomiyaha mooshin markii loo keeno baarlamaanka sida u dhaqmahayo iyo waajibaadka markaas maaragtay ay kala leeyihiin dadkii mooshinka keenay xildhibaanadii keenay mooshinka iyo qofkii laga keenay guddoonka laga keenay nidaamka u yaala qodobkaasa caddaynaya haddii mar mooshin laga keeno mooshinkana sharci uu yahay sida kan camal uu yahay 107 xildhibaan ayaa soo saxiixay mooshin ka keenay guddoomiye jawaari waxay u gudbiyeen qofkii mudnaa oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahaa qodobkaasa wuxuu tilmaamayaa haddii mar mooshin sharci laga keeno guddoomiyaha markaas kadib ilaa cod looga qaado uu ka guulaysto hawshii baarlamaanka asiga ma hogaamin karo sharcigaa ka joojinaya ilaan waxa lagu yahay waa sharciga markii hore sharciga ku fadhiyey nidaamkaas hadduu soo baxo oo arrintaas la keeno asiga xaq uma laha markaas kadib inuu maaragtay guddoomiyo taas macnaheedu yahay qof haddii la eedeeyo asiga garta ma guddoomin karo qof lasoo dacweeyey oo lasoo eedeeyey oo haddana asiga xukunkii ku dhawaaqahayo maalin hiblaayaa loo fadhiisanayaa hiblaa gardaran saasaa yeelayaa ma dhihi karo qof haddii mar lasoo eedeeyo wuxuu sugayaa dad qofka waajibkaas iskale guddoomintiisa asigaa laga sugaya sacaddii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyey hogaaminta baarlamaanka waxaa xaq u leh guddoomiye ku-xigeenka koowaad asigaa hogaamintaas iska leh waxaana siiyey heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaallo ayaa siiyey taas haddii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharciga runtii guddoomiye jawaari waxyaalaha lagu soo eeday waxaa ka mid ahaa inuusan ku dhaqmayn heer hoosaadka iyo dastuurka taasna waxaa daliil u ah qodobkaas uu og yahay oo asiga saxiixay markuu inkiray oo qodobkaas la soo fadhiistay wixii xildhibaanadu ku soo eedeeyeen asigaa caddeeyey taasa daliil u ah waxaan kale rabaa inaan caddeeyo ilaa xalay waxaa lagu celcelinayay baarlamaankaa la qabsaday baarlamaankaa lala wareegay waan la yaabnay taas waa qalad kale oo qarannimada laga galahayo ummadda soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waa arrin la yaab leh baarlamaanka waxaa noo ilaaliyaa ciidamada amasom qeyb ka mid ah oo aan badnayn iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ilaalinaya ayagiyaa jooga mar allaal markii baarlamaanku furmaayo sharag la qabanayo ciidanka waa lasoo badiyaa markii baarlamaanka yahay dad yaraa ilaaliya taasa waxaa laga dhigay inay dembi tahay oo la yidhaahdo baarlamaanka lala wareegay oo la qabsaday caalamkii iyo ummaddii soomaaliyeed loo sheego waa nasiib darra taas naftarkeedan tacaddi kale ummadda soomaaliyeed laga galay oo baarlamaan laga galay weeye kaas weliba in caalamka loo sheego taas horta anigu waxaan leenahay wixii nidaamka inagana farahayo oo heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurkana farahayo kaasaan ku dhaqmayna minihin dad inuu baarlamaankan karaamo beelo oo dumo dad ku shaqaynaya minihin waxaan ahay dad shuruucda u hoggaansan haddii guddooyinkooda ay dhaliilan iska bedeli karo hadduu u fiican yahayn sidiis ugu dambeeyo oo awaamirtiisa qaata marka guddoomiyihii maadaama baarlamaankii ay u arkeen in hoggaamintii la rabay fulintii iyo hoggaansanaantii shuruucdii yacni dardargelintii dastuurka ummadda soomaaliyeed u fadhiday waxyaalihii laga rabay oo dhan hoggaamintooda haddii lagu dhaliilay oo la yidhi guddoomiye waqti badanna maaragtay baarlamaankan hoggaan u ahaatay waa lagu qanci waaye sidaad u hoggaaminayso naga fadhiiso haddii la yidhahdo lagu soo jeediyo laba arrimood xag u leeyahay guddoomiye jawaari in uu sugo codka 184 ku dhacaya aada looga badiyay inuu taas aamino oo sugo ama sidii hadduu walaalkay soo jeedinahay camal war odayaan ahay haddii baarlamaanka intiisa badanba mar sidaas soo garteen waayahay warkiina waayele anigaaba ka fadhiistay cod hataa ma sugaay labadaasa u bannaan ma ahin in yacni ummadda soomaaliyeed waxyaalo qaldan u sheego oo caalamkii u dacwoodo sideedin anigu maba ogolinba in lasoo fargeliyo baarlamaanka waajibaadka dastuuriga asigii leeyahay hay-ado kale inay soo dhex galaan ama ajnabi soo dhex galo oo sidaana kama bid ma aha
annaga asxalina ciddii baarlamaanka waa dooranaya kalsoonidiisu siinaya ciddii raban waa kala noqonaya taas naftarkeeda in adduunka loo yeero oo waxaas la sameeyo yaa waxay tahay in yacni baarlamaanka raamadiisa meel looga dhacayo mucufanimo ka muuqatay noqonaysaa taa naftarkeeda taas waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay ha loo hoggaansamo dastuurka iyo xeer hoosadka baarlamaanka u yaalo taasaan saa ka leenahay walaalayaal warka kuma fogaanayno insha allahu wixii talada iyo qabsoomidda baarlamaanka iyo nidaamka hoggaaminta baarlamaankana waxaan ka sugaynaa siihayaha guddoomiyaha yaan ka sugaynaa waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada walaalaha anaga oo ugu caadifo qaaday ujeedo kasta siyaasadda ka laftay inay ayagana u hoggaansamaan si sharafta iyo heybada baarlamaanka loo wada ilaaliyo taasaan ujeedina ayagana insha allah waxaan ka rajaynaa inay naga ogolaadaan aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warkii saaxiibaday ayaa hore u sheegay aniga hamidaan rabaa inaan doojiyo oo gareeyo ayaan rabaa inaan gareeyo mooshinkan sababaha uu u yimid 4 bilood ay socotay sababaha uu yimidna waxyaabaha ugu badan oo lagu eedeynayay gudoomiyaha mooshinka laga keenay waxay ahayd kutumashada dastuurka iyo xeer hoosaadka laba kal fadhi waxaan hore u sheegnay baarlamaankan inuusan lahayn qorshe howleedkii baarlamaanka uu ku shaqayn lahaa sanadkii labaadaa bilowday qorshe howleedkii baarlamaankan miyaan waxaabihii lagu eedeynayay ka mid ahayd waana sharciga wuxuu siinayay baarlamaanka bisha ugu horeysaba in la keeno qorshe howleedkii baarlamaankan waxa uu ku tuntay maxaa la yidhaahdaa xeer hoosaadkii baarlamaanka 133 xildhibaan oo cusub ay joogay xeer hoosaadka in waxay ahayd dib u habeyn lagu sameeyo sanadkii labaadaan joognaa isagoo ka fadhiya wax walba oo baarlamaankan hore u wadi lahaa isagaa hor istaagay waxyaabaha looga horkay oo markii damcayn lala hadlana shuruucdiina isagaa ku tuntay baarlamaankaana maalinka hore u furaya maalinka hore u xiraya hadda waxaa arkaysaan jahwareerkii wuxuu marinayaa qodobka tobnaad ee xeer hoosaadku xalay cuskaday asoo meediyaha la hadlaayo oo weeraraya amniga iyo baarlamaanka qodobka tobnaad ee xeer hoosaadka akhrista meel walbuu ku jira wuxuu ka hadlaya shaqada habdhowraha habdhowruhu waa qayb yaroo ka mid a baarlamaanka oo maamulkana gudaha golaha markaan fadhino shaqooyinka noo qabta habdhowrayaashuna amnina shaqo kuma lahan amni hadday shaqo ku leeyihin amniga waxaa laga hadlaya maalinka fadhiga aan joogno nabad sugidii iyo booliskiina ilaalinaya howlahoodii ma kala haayaan irdihii si fiican ugu joogaan waxaasay ka hadlayaan ayagana waxaa amar siiya hadba guddoomiyaha sharciga jooga haddii xataa ay tahayna asaga shaqo kuma lahan cidda kormeeraysa oo ciddaa amar siin lahayd waxaa waye guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah hadda sii hayaha guddoomiyaha inta codsigan uu dhinac uga dhacay marka waxaa ka muuqatay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxaa la yidhaahdaa mudane jawaari in jahwareer xoog la ku dhacay asagii la rabay sharciga iyo xeer hoosaadka inuu ilaaliyo waxaa moodaa waa run shacabka soomaaliyeed xeer hoosaadkeenna ma wada haystaan marka inta subax walba inta la soo istaagay haddii qodob la yidhahdo hebel wax oo aan shaqo uusan ku lahayn la yidhaahdo waxaasna waa ka hadlaya ayaan darro wey odayga aniga waxaan qabaa odayaal saaxiibadiisa yaa halkaan fadhiya baarlamaankan waa soo wada shaqeeyeen inta badan hadda 5 sano ay wada shaqeynayaan aniga waxaan qabaa nasteexintii cabdullaahi uu soo jeediyey xildhibaan cabdullaahi inuu qaato waa ka wareertay haddiiba xeer hoosaadkii qodobkii 10aad iyo qodobkii 9aad iyo qodobkii 8 isaga qaldameen maamulka iyo waa ku adkaan doontaa aniga marka waxaan kula talinayaa guddoonka inuu intaan wixii ka dambeeya annagana jidjid uusanna gelinin maalin walbana annaga nooma habboona markuu qodob 8 ka hadlo oo si qaldan ugu akriyo inaan ka daba akrino karaamo maaha baarlamaankii karaamo umaaha waxaan odhanaynaa inuu iska nasto haddana waxaan ku qasbannahay inaan xeer hoosaadka inta qodob uu ka kooban yahay wasaa'idyada gelino markuu mid sheegaba shacabka ayuu sii u akristaan waayo annaga ihaanan ugu tahay doodannadu waxaan rabnay golaha shacabka gudihiisa inay ka bilaabo inaan meediyaha isaga akrino qodob hebel iyo qodob hebel ayaan daray ku tahay shacabka soomaaliyeedna waxay ku noqonaysaa naxdin iyo cabsi marka waxaan u jeedinaynaa guddoomiyaha laga keenay mooshinka waa u jeednaa waa ku kalsoonaan laayahay baarlamaankiisii si sharafna walaalihiis talada u soo jeediyeen istiqlaalada ha keeno
annagana yuuna wareerin xildhibaan waayo baarlamaanka waa soo fadhiisanaya caqli iyo cilmi wuxuu hayo waa u baahannahay kursigiisii waa u bannaan yahay guddoomiyaal horaa haddaba xildhibaan noo fadhiyo halkaan talada la talinaya ma ahan markii ugu madaxweyneyaal horaa ah xildhibaanada ka mid oo soo fadhiista taladiis waa loo baahan yahay oday waayo waa u baahannahay khibrad aad u tiro badan u leeyahay laakiin jahwareerka intaan ka badan ummadda yaanaan gelin annagana hana ixtiraamo asagana ixtiraama u haynaaye nin qaran waaye nin dowladeed nin soo shaqeeyo waaye aakhiru zamaanka intii u dambeysay yuusan isaga tuman wabilahi tawfiiq waa mahadsantihiin shirkay maanta intaas inoogu dhan yahay